بسم الله الرحمن الرحيم anigoo Cabdalla Sigad waxaan caawa halkan ka soo jeedinayaa ama ka tirinayaa maasa kooban oo magaceeda la yiraahdo Khalaf iyo Jalaf. Khalaf iyo Jalaf ninkii yaqaan baa yaqaane waa laba beelood oo sharaf leh oo ka soo jeeda beelaha dega koonfurta Soomaaliya waxayna ka kala tirsan yihiin beesha Majeerteen iyo beesha Habargidir. waxayna ka mid yihiin beelaha maasada ku jira ee aan ku soo halqabsanayo. haddaba maasada Khalaf iyo Jalaf oo ku wajahan dadka reer Awdal gaar ahaan dadka Gadabuursiga ka soo horjeeda qarannimada Somaliland ayaa waxaan uriyay 7 Oktoobar 2012 maalin kadib markii lagu dhawaaqay ra'iisul wasaaraha loo sameeyay koonfurta Soomaaliya. haddaba anigoo nin aaminsan in jiiraankaaga iyo deriskaaga wax la qaybsado anaan aaminsanahay in dadka reer Awdal ee Gadabuursiga ay wax la qaybsadaan beelaha ay jiiraanka yihiin sida beelaha Isaaqa iyo beelaha Ciisaha. maasada waxaan uga dan leeyahay waano iyo wax sheeg. maasadii Khalaf iyo Jalafna waa tane bal guuxayga ila dhageysta. wartolkayo Khalaf iyo Jalaf iyo abgaal ninkii qada ka tuugaya iyo kii qardabada Isaaq qayb ka ridanaya kala qaalisan labadiyo way kala qabweeyeen qoorsiga mareexaan intaan daba qadoodayno war maxaa naga qaldan haddii aan Isaaq baraaraha la qaybsano idinka qaldamayay haddii aan tolow runtaba idin qaniinsi aban qoomameeyo bariye haddaan maanta qira wixii taagan cidadaadka qooqdiin idinkoo garad ku taamayn waqti dheero idin layseer wada qaxaysaan Soomaali laga qaxay oo magaceed la quursado oo qiimo badan lahayn waryaa u qoolay boorama aqalaada abidkeena kay qeyra kiciseen Muqdisho qushuucay Hargeysana qoonsaday ee qasab waa halkiise lama qaldi karaan kuwa xamar u qooqan oo iyaga qargoynay yaan qaali laga dhigin waxba yaan la qoonsan waa qasaaruhoodiyo oo mama u taal kuwa qola shisheeyaa qandaraas ka raadshe qalin maalkii Gadabuursiga qaaliga ahaa waa kuwa qadoodiga baday hawiye oo way qasaarsheen mareexaankii shalay qixiyay bay qaali ka dhigeen ina samatarna isagoo qoostay buu xamar qaxweeyay kaasaa qiyaasku ugu filan kii qaldamayo mala waad qarweysaan tolow iyo idin qaboojin qaraskiyo xumaanta iyo idinka soo quba ya idin qaniisiye geed samaanta laga qoday doorkan qasaneed ka qaloonaysaan waryaa wada qaloo qalbigooga idin tusa qalinaad qabowdaan waxbayaan qudwadin xaajadii qalashay waa hore qolkani Hargeysiyo jannadan qaale lagu keenay qalbigiin halmaanyay war miyaad naga qasaysaan naqadoodi baad nagu wadaan iyo xamartan qiiqaysa saylici qaxwuu dhamo miyaad qodana leediin qudbiguu ku joogana war miyaad qodana leediin qoor iyo xeree xageed noo qasbaysaan qiimaha camuudeed miyaan xamar u qaadnaa eelamaan qasnaayoon ka dhignaa qol maran qawskiyo walhadkan looga iman qaarad war miyaan qaxan idhaahnaa aban qaawanaane tolkayow haddii aad qiyaamiyo qarandumis wadaan ood xamar quu darayseen Isaaq ma iska qaadnaa oo ma qabsanaa Hargeysaba qoor hayna moodo hayna qadariya adduunkuye mise qarafa iyo quursi baanu qoolnaa nafteenno xamar bay iska qabanaa mise sida quman baynu yeelnaa oo Isaaq baan la qodanaa qoodigeena keliyo qarankeenaan ruugnaa kuwaasaa qaralahoo lala qaybsan karayaa waxay kala qarsanayaan. maasadii koobnayd ee Khalaf iyo Jalaf ee aan ku cabiriyay dareenkayguna intaas ayay ku egtahay. waxaan kula talin lahaa dadka walaalaha ee reer Awdal inay dadka deriskooga wixii wanaag ay haystaan ay u quuraan si ilaahayna inaga wanaag noogu quuro. qaylada iyo buuqa iyo qabiilada deriska ee laaflagaadinayna la iska daayo waana in la kala saaraa xukuumadda oo madaxweyne Siiraayo madaxa ka yahay iyo beelaha Isaaq oo ay in badan oo kamid iyaga laftikooda ku dulman yihiin oo ay ku jaahuraysan yihiin maamulkii markaa jira in wixii laga sheegaana wanaagsan sida aniga fikir ahaan ila tahay. intaas aan ku soo gabagabeynaya fikirkaygii. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.